kulan wacan saaxiibada xiiseeya muuqaaladeena meel kastoo aad dacallada adduunyada ka joogtaan waxaan hawada idinka leeyahay waqti kasta ay kuu tahay ha kuu wacnaado oo ha kuu wanaagsanaado waxaan fideogan aan kaga hadlayaa familka ay ka dhalatay Cayuuni qaasatan walaalkeed oo si aad ah kaga cadhooday muuqaal lagu faafiyay social media ka oo laga duubay Cayuuni oo caan ka ah social media qaasatan TikTok. Haddaba familka ay ka dhalatay Cayuuni ayaa khilaaf aad iyo aad u weyn u soo dhex galay waxaana iminka sida aan ka soo xiganay mid ka mid ah asxaabta ku dhadhow familkaas ay inoo sheegeen in iminka la wado ama ay hubinayaan familka in fideogaasi uu yahay mid sax ah oo Cayuuni ay tahay qofka fideogaasi laga duubay. Haddaba familkii ayaa iminka isku dhex maqan oo sheekada si aad iyo aad ah ay xamaasad u leedahay ama u qasan tahay daawadayaal. Haddaba Cayuuni ayaa familkeeda waxa ay ku eedeeyeen in ay qaab xun ugu hadlaysay taleefankaas ama video call-ka xilliga ay ku hadlaysay una dhaqmaysay qaab dhaqan xun. Wiilka ka duubay fideogaas ayaa la sheegay inuu ka mid yahay wiilasha Soomaaliyeed ee ugu caansan aaladda TikTok ee sida aadka ah u isticmaala. Sida aan muuqaalkii hadda aan soo gelin aad ku daawateena insha Allah qofka uu yahay waan idin soo gudbin doonaa sida ugu macquulsan uguna caqli galsan ayaan idin kula wadaagi doonaa balse waxaan hadda idin sii sheegayaa in uu yahay mid ka mid ah dadka ugu caansan ee isticmaala aaladda TikTok ee Cayuuni saaxiibo ay ka yihiin. Haddaba fideogaasi Cayuuni laga duubay ayaa waxaa iskula wadaagayay dhammaan social media qaasatan Facebook oo qof walbaba Facebook isticmaala fideogaasi loo sii gudbinayay. Haddaba qoyska ay ka dhalatay Cayuuni ayaa waxa ay ka codsadeen guud ahaan dadka haya ama degsaday fideogaasi ee ku sii faafinaya social media intiisa kale in ay muuqaalkaasi delete iska dhahaan kana bixiyaan dhammaan meel walba ay ku sii faafiyeen. Waxayna ka codsadeen in gabadhaasi magaceeda aysan bulshada dhexdeeda ku dilin fideogaasina ay ka bixiyaan dhammaan social media ay dadka ugu sii faafiyeen. Haddaba Cayuuni ayaa si aad iyo aad ah u aaminsaneyd wiilkaasi ay kula hadlaysay TikTok kula hadlaysay video call-ka waxa mana aysan ka filaynin in fideogan uu ka duuban doono xilliga ay la hadlaysay. Cayuuni ayaa sida aad wada daawateen wax walba uu wiilkaasi ka codsaday sameynaysay sida fideoga aad ka daawateen. Midda kalena fideoga inta uusan soo gelin ama uu ku faafin social media waxa uu sameeyay codka ayuu ka bixiyay oo cod la'aan ayuu fideoga ku soo geliyay social media si aan isaga codkiisa loo aqoonsan. Haddaba ugu dambeyntii waxaan qof walba oo fideogani daawada aan ka codsanaynaa inuu saaxiibadiisa ama meelaha social media intiisa kale uu ku sii faafiyo. Qof walba oo fideogan daawadana waxaan u sheegaynaa in ay dhageystaan codsiga ka imaanaya familka ay ka dhalatay Cayuuni oo ka codsaday in muuqaalkaasi laga bixiyo dhammaan social media. Waa naga codsi inaad dhageysataan baaqaas idinkaga imaanaya waalidiinta Soomaaliyeed ee ka dhalatay Cayuuni baaqaasi oo aad fideogaasi dhaqanka xun aad ka bixin doontaan social media meel walba aad kula sii wadaagteen. Haddaba ugu dambeyntii waxaan u digayaa dhammaan gabdhaha Soomaaliyeed ee isticmaala social media kuna hadla video call-ka ay ka soo wacaan wiilasha Soomaaliyeed iyo weliba dadka kale ee ajnabiga ah. Waxaan dhammaantiin idinkaga digaynaa in aad ka digtoonaataan dhibaatooyin laga yaabo in ay ka dhashaan video call-kaasi la idinkula sheekeysanayo. Haddii video call aad ku hadlaysana iska ilaali in aad u dhaqanto qaab ka baxsan dhaqanka Soomaaliyeed iyo weliba diinta Islaamka taa oo laga yaabo in uu ka faa'iideysto qofka kula hadlayo kadibna sumcadaada uu ku dheelo oo social media iyo meel walba uu ku faafiyo muuqaalkii uu ka duubay. Ugu dambeyntiina muuqaalkeeni halkaas ayaan daawadayaal ku soo gabagabeynaynaa.
waxaana naga ogeysiis ah inaad codsiga familkaasi idinkaga imaanaya aad u hoggaansantaan oo muuqaalka Cayuuni aad ka bixisaan dhammaan social media. muuqaalkeenina intaas ayuu ku egyahay. tan intaan dib u kulmi doono video kan ka xiiso badan waxaan daawadayaasha qiimaha leh idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. fadlan videogani like inoo dheh, sidoo kalena comment ka soo bixi, saaxiibadaadana la sii wadaag muuqaalkan. nabadgelyo.